haatan imika waxaynu u gudbaynaa barnaamijkeenna oo ugu horreyn aynu ku soo qaadanayno bal xusuuso ku saabsan qabyaaladda oo adduunka hore uga dhacay ama dhulka Soomaalida laftigiisa ka dhacay dhowr qiso ayaynu soo qaadan doonaa qisada ugu horeysa aynu soo qaadanaynaa waxa ay dhacday waqti hore waxay ka dhacday dhulka Carabta xilligii diinta islaamka cusbayd xilli bay taariikhdeedu ku salaysan tahay dadka taariikhda islaamka yaqaana ama taariikhda Carabta yaqaanana aad bay u yaqaaneen ama u xusuustaan markii geeridii nabigu timi calayhi salaatu wasalaam waxa dhacday in dad soo baxeen nabiyo sheegtay marka dadkii nabiyada sheegtay waxa kamid ahaa sida taariikhdu xusayso nin la oran jiray Dulayxa oo sheegtay inuu nabi yahay nin Cuyaana la oran jiray ayaa ninkaas dadkii taageeray ee raacay kamid ahaa inkastoo markii dambe uu islaamka u soo noqday ninkaasi Cuyaana la yiraahdo isagoo oo reerkiisii la hadlaya oo doonaya inuu ku baraarujiyo ama uu ku guubaabiyo inay raacaan ninka nabinimada sheegtay ee Dulayxa la yiraahdo waxa uu la hadlay reerkiisii erayadii uu ku yiri waxa kamid ahaa Ilaah baan ku dhaartay nin reer Bani Asada ayaan ka jeclahay nin reer Bani Hashima ee raaca ama hala taageero Dulayxa baladeeg wuxuu nin reer Bani Asada macnaa nabi reer Bani Asada ayaan ka jeclahay nabi reer Bani Hashima waahil buu sameynaya qabyaalada oo xaq darro ah reer Bani Hashim nabiga macnaa markuu leeyahay nabi reer Bani Hashima waxaan ka jeclahay macnaa wuxuu sheegayaa nabi Maxamed buu leeyahay waa reer Bani Hashim macnaa reer Bani Hashim buu ka dhashay marka nabi reer Bani Asada baan ka jeclahay waad arkaysaa inay hiil qabyaalada oo aad u xun oo aad u daran inay tahay oo heerkaas macnaa marxaladaha heerkaas ee dadka qaarkii gaarsiisay in qabyaaladda ama hiilka xaq darrada ahay waxa kaloo jirtay nin isaguna xilliyada ahaa inkastoo intii nabigu noolaa calayhi salaatu wasalaam uu sheegtay nabinimo haddana macnaa si markii nabigu geeridii nabiga ka bacdina nabinimadiisii wali ku sii adkaystay oo magac Musaylima beenaale la oran jiray ninkaasi isna wuxuu kamid ahaa raggii nabinimada sheegtay dadkii nabinimada sheegtay oo badnaayeen xataa dumar baa ku jiray sida taariikhdu xusayso ama in culimada ka maqlo in badan marka ninka nabinimada sheegtay ayaa nin reer miyiga baa soo aaday oo u yimi dabeetana wuxuu yiri ninkii reer miyiga ahaa away Musaylima dadkii baa ku yiri war ka aamus rasuulka Alle ka aamusimayay buu yiri dabeetana uu u tago uu galay wuxuu ku yiri Musaylima ma tahay marka wuxuu ku yiri haa wuxuu yiri yaa ku yimaada wuxuu yiri Raxmaan wuxuu yiri ma mugdi buu kuugu yimaadaa mise nuur wuxuu yiri mugdi wuxuu yiri ninkii reer miyiga ahaa waxa aan qirayaa inaad beenaala tahay Muxammedna run sheegay yahay laakiin beenaale reer Rabiica ah ayaan ka jeclahay run sheege reer Mudara ana reer Hashima isagoo ula jeeda adigoo beenaala ah oo aan qiraya inaad beenaala tahay ayaan ka raacaya oon haddana ku hiilinaya oo aan kaaga hiilinaya inaan raaco nabinimada Maxamed alayhi salaatu wasalaam oo ka dhashay Quraysh wala doo fiirso qabyaaladdu hiilka xaq darrada ilaa heerka uu gaarsiisan yahay marka aad qisooyinka eegto
soomaalideenna maantana aad eegto waxa kuu soo baxaysa in kasta oo aan aynaan arag ilaahayna aynu ka magan galaynayno aragno dad nebiye sheegto inaga soo dhex baxa ilaahayna horena inoogama soo saarino maynaan maqal inuu inaga soo saarana ilaahay kama baryayno waxaan leenahay ilaahay naga nabadgeli laakiin waxaynu aragnaa waxyaabo u eg oo waxaynu arkaynaa qof hadlay oo siyaasi ah waxaa laga yaabaa inuu ku hadlay ama ku dhawaaqay nadaam ama hadal aan waafaqsanayn wanaagga iyo xaqa oo wax badan oo dhibaato ah keenaya waxaad arkaysaa dadkii la isirka ahaa oo markiiba taageeraya oo u riyaaqaya oo u sacabtumaya oo raacaya xataa haddii uu u hoggaamiyo talo ay ku le'anayaan oo ku baaba'ayaan oo dhiigooda uu ku daadanayo waxa aad arkaysaa iyaga oo daba safan oo u dhimanaya oo u doodaya oo u hadlaya oo aan ka hadhaynin marka waxaa la odhan karaa waa waxyaabaha la odhan karo raadadka ama qisooyinkaa hore marka la eego la odhan karo waa astaamo muujinaya ama waxyaabo muujinaya in ay mashaakilaad intaa la egi ay jiraan oo dadku weli ay yihiin ama ay adduunka markaa dee adduunka kaleba iska eegto soomaalida dhexdeeda ay ka jiraan in dulmiga si fudud dadku u raacayaan oo ay u taageerayaan iyagoo qiimaynaya qofka yidhi ee aan qiimaynaynin waxa uu yidhi sababta dadka hodaysaana waa taa mar hadduu hebel yidhi waa xaq in badan baad arkaysaa dad maxaan idhaahdaaye tusaale ahaan qofka madax noqda dadka taageera ee inta badan qofkaa difaaca khalad iyo saxba waa dadka qofkaa madaxda ah la haybta ah ama la isirka ah ee la abtirsiintee halka uu kasoo jeeda way yar tahay inta badan inaad aragto qofkaa qof la isira oo ka soo horjeeda oo hadduu khaldan yahay khaladkiisa ka joojinayo ka qabanaya laakiin khalad iyo saxba waxaad arkaysaa iyadoo sacabka loo tumayo loo taageerayo dhinaca kale qofka maxaan idhaahdaaye ka soo horjeeda qofka madaxda oo kale ee isaguna mucaaradka sheegto kale waxaad arkaysaa dadka isagana taageersani inta badan iyaguna inay yihiin dadka la isirka ah oo iyaguna sacabka u tumaya marka waa mushkilad weyn oo jirto dadka haysataa oo soomaalida maanta xoog u haysataa in aan la eegin maxaan idhahdaa qofku waxa uu yidhi ee isaga la qiimeeyo dabeetana isaga la raaco iyadoon weliba shakhsiyadiisa iyo aragtidiisa iyo wuxuu sheegaya la qiimeynaya keliya halkuu ka soo jeedaa waa iyo abtirsiimadiisu marka mar haddaa isku abtirsiimo noqotaan oo isku meel ka soo jeedaan xaq iyo xaq darraba wuxuu yidhi waa xaq mar haddii aydaan isku abtirsiimo ahayna oo uu hadlo oo wax sheegana xaq iyo xaq darro wuxuu yidhi waa xaq darro sidaasaa xukunku aada moodaa inuu isaga badan yahay bulshada dhexdeeda maanta waxa aynu haddana u gudbaynaa laba qiso oo kale oo soomaalida dhexdeeda ka dhacay iyaguna muujinaya waataynu hore u sheegnay ee u nidhi qabyaaladdu waxa ay ku taagan tahay laba tiir oo midi yahay hiilka xaqdarrada ah midina yahay kibirka markaa labadan qiso waxa ay ku aroorayaan dhinaca kibirka qiso ayaa dhacday laba qabiil oo Soomaaliya ayaa isdilay waa hore dabeeta labadii qabiil markii uu dagaalkii dhammaaday way isu yimaadeen way shireen way wada hadleen waxay go'aansadeen inay heshiiyaan waxa ay tiriyeen dadkii ay kala dileen qolo ayaa laga tira batay oo dadka laga laayay uu ka batay kuwa kale intii laga dilay dabeetana waxaa lagu heshiiyey in qoladaa dadka tirada badan inta haldheeriga ah ee ka dhimatay in loo celiyo oo magtooda la siiyo dabeetana nin ka mida reerkii inta yari ka dhimatay ee magta lagu yeeshay ayaa diiday inay magtii bixiyaan
wuxuu yidhi geel sumadayada leh xero kale laguma xaraynayo ama xero kale kama soo ololayo ama nin kale ma yeelanayo. ninkii wuxuu istaagay meel adag, waa nin saameyn weyn markaa kule reerka oo geesiya oo xilliya waqtiyada dagaalkoo kale aanay ka maarmin oo aftahana oo suugaanyahana oo wuxuu ahaa aad iyo aad u culus oo dadka qabiilka kala jebin kara. inkastoo suldaankii reerka iyo cuqaashii iyo wixiiba isku raacsan yihiin inay magtii bixiyaan, haddana ninkaas baa ka horyimi. caqli baa la isticmaalay, waxay damceen si ay magta u bixiyaan ninkan inay wuxuun iska farsameeyaan arrinkiisa. hadal markii ay kala quusteen waxay sameeyeen, ninkii waa la isbeen fariimay. waxaa lagu yidhi saaxiib hebelow, magaalada berbere la yidhaahdo ayaa dooni aad abbaano ahayd timi, markaa doonidii way xidhan tahay, dartaabaanan dee u xayiran tahay, marka waa inaad dee tagto. dabadeetoo xilligii hore baa abbaanadaas jireenoo doonyaha iyo waxyaabaha ka imanaya dhinacyada adduunka cid baa abbaano ahaan jirtay, waayo dee dowlad may jirin dad wixii mas-uuliyaddooda qaada. laakiin meesha waxbaa ka jiray. dabeetana ninkii wuu tegey, berberuu qabtay. berberena waa looga sii horreeyey oo dadkii joogay baa la yidhi marka uu yimaado xidha. dabeetana ninkii inta arrin lagu masabiday ayaa la xidhay. intii uu xidhnaa ayaa dabeet magtii la bixiyey. muddo dheerna waa xidhnaayoo xadhiggii waa lagu daayey. dabeetana beri dambe hadda iyadoo magtii la kala qaatay oo la heshiiyey adduunkii dee adduun noqday baa la iska soo daayey. isagiina waxoogaa xaala baa niman u abtiyaal haysiiyeen oo yidhaha war arrinkaa kugu dhacay annagaa kaaye iska magaraysa dulqaado. waad arkaysaa hiil xaqdarra oo kibir ku dhisan buu sameeyey, isagoo ka kibraya in geela sumadooda ku taallo uu xero kale ka soo ololo. waa kibir aada u xun oo weliba xaqdarra ah oo dee kii aynu sheegaynay dee qabiilku labadii tiir ay qabyaaladdu ku taagnayda. laakiin caqli baa xalliyey mushkuladiisii oo ka hortegey oo waa la xalliyey. waxa kale qisada labaad aynu iyadana soo qaadanay kibirka ku salaysnayd waxay ka mid ahayd qisadii qabaalka oo dad badan oo soomaaliyihii ay wada garanayaan. waa qabaalku waa qabaal lagu cabaayey, xoola ku cabayeen oo dabeetna nin dalooliyey, oo ninkii dalooliyey uu nin kale dilay. dabeetana ninkii wax dilay magtiisii markii laysyiri magtii ka bixiya, hal qabatay uu aabbihii diiday inuu bixiyo. dabeetana ay dhacday in labadii qabiil ay muddo badan dagaal dhex maro, dad badani ku leedaan. ma garanaysaa khasaare aad iyo aada u badanina uu ka dhacay. waana qisooyinka ugu taariikhda badan ama ugu caansan ee la yaqaano. dabeetana ninkii hasha bixin waayey ee inankaa dhalay ee weliba yidhi haddaan hasha bixiyo yaa sumadayda ka leefaya buu yidhi. macnaha hasha aan bixiye ee hal sumadayda lihi xero kale ka soo ololi mayse ee yaa sumadda ka leefaya. halkaas bay qisadu ka dhacday iyo balaayadu sidii bahashina ku bixeen sibaa dagaalkii ku dhacay. dabeetana aakhirkii waxay sababtay dagaalkii dhacay iyo mushkuladii dhacday iyo hooggii dhacay in isaga laftiisii ku naf waayo. dabeetana isaga oo naftu ka sii baxayso oo sakaraada ayaa la soo dul taago. markaasaa lagu yidhi hebelow bal waran. wuxuu ka tegey hadal xigmada oo aad iyo aad u noqday mid loogu halqabsado. waxa uu yidhi maalintii aan taagta hayay tala ma haynin, maanta oo aan tala hayana taag ma hayo. waa arrin aad iyo aad u noqotay in wax loogu qaato oo dad badan anfacday oo dhaxal u noqotay. waayo wax kasta oo had iyo jeer bini aadamku saddex wax bay mushkuladaha ka hor yimaado u adeegsadaan. ama waa taariikh oo taariikh bay cuskadaano marka matalan arrin qabaalka oo kale kugu yimaado ee taariikhda qisadaa qabaalka oo kale aad hayso ee qabaal aad leedahay lagaa dalooliyo, waxaad doonaysaa war tii qabaalkee berigii horeeyay kugu dhicin oo kale arrinkii waxa laga yaabaa tiraahdo war qabaalkani beri hore dad isku dilay yaa wadadii oo kale marmayne qabaal kalaan iska samaysanaya ama waan iska furaysanaya. waayo wax dhibaato hore soo aragtay dhaxalkeeda
ayaa wax kaa celiya ama cilmi baad wax ku xallisaa oo tusaale ahaan haddii imika dad kuu yimaado is haystaa oo isku haysta mag ama dhaxal dee cilmigaad u eegaysaa oo wadaadun baad u yeedhaysaa oo cilmi loo waxaad leedahay haba adigu haddaad taqaanaba halkaasaad ku kala saaraysaa kitaabkun baad kala furaysaa arrinka saddexaad ee wax lagu xalliyaa waa caqliga haddii meel markaa cilmigu aanu waxba ka qabanaynin ama aanu taariikhdu waxba ka qabanaynin oo aana daliil u haysanin taariikheed ay kugu soo baxdo sida safar adoo socdoo kaloo ay lugaynaya baad safar baad u socotaa waddo meeshii aad u socotay aad kuu geynayso oo toosana ma haysid waa lagu tilmaamo waxa la yidhi meesha halkaas weeyaane mar tilmaantii marka caqligaagii baad adeegsanaysaa oo xoogay adiga caqligaagii bay suran marka waxyaabo badanna caqligaa lagu xalliyaa waxyaabo badanna waxaa loo daliishadaa taariikhda kuu xallisa oo intaanad labada kale u baahan baaba taariikhda ay kuu furfurtaa waxyaabo badanna dee cilmigaynu ku furfurnaado ku xallinaa